wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan wuxuu ka soo hanjabay magaalada Mandheera oo habeennimadii xalay uu ku hoyday. Jubbaland war waxay ka soo saartay xaalka qasan ee gobolka Gedo iyo dagaal dadku ay ka baqanayaan in dawladda iyo waliba Jubbaland uu dhex maro. Xaaladihii ugu dambeeyay gobolka Gedo hub ay dawladda Soomaaliya ka dejisay degmada Doolow. Maalmihii dambe Luuq iyo Baardheere ayaa diyaarado hub ay ka dejinayeen markanse Doolow xaalka waa qasan yahay gobolka Gedo. waxaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay markan doonaysaa in ay laba jibaarto awoodeeda iyo waliba isku ballaarinta gobolkaasi. diyaarad sidee gaadiid dagaal iyo hub fara badan ayaa lagu soo waramay in ay maanta gelinkii hore ka degtay garoonka diyaaradaha degmada Doolow ee gobolkaasi. ila lagu kala soon yahay ayaa u sheegay xogta wararka in diyaaradaas ay ka ambabaxday garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, halkaas oo la sheegay in saraakiil ka tirsan ciidamada dawladdu ay ku sugnaayeen garoonkana ay ku sii sugayeen. sida ay ogaatay xogta wararka, gaadiidka iyo hubka faraha badan ee la geeyay halkaas ayaa loogu talagalay ciidamada dawladda ee dhawaan la geeyay meeshaasi, gaar ahaan kuwii ugu dambeeyay ee xalay la wareegay degmooyinka Luuq iyo Beled Xaawo. dawladdu waxa ay toddobaadyadii la soo dhaafay xoojisay dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka dhanka ah maamulka Jubbaland qaybtooda kaga sugan gobolka Gedo. xiisada u dhaxaysa dawladda federaalka iyo Jubbaland ayaa sii xoogaysanaysay marba marka ka dambaysa, iyadoo Jubbaland ay sidoo kale war ka soo saartay arrimaha jira. lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhaqdhaqaaqyadan ay wada dawladda, iyadoo saacado ka hor degmada Beled Xaawo uu tagay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. hase ahaatee 7 saacadood uu ku sugnaa magaalada Buuro Xaawo ayaa la sheegay inuu isaga baxsaday oo habeennimadii xalay wuxuu ku hoyday magaalada Mandheera. qorshe dawladdu ay ku qaban lahayd ayuuna ka badbaaday oo Beled Xaawo ciidamada dawladda ayaa hadda la wareegay. wasiirka warfaafinta Jubbaland Cabdi Xuseen Sheekh Axmed ayaa waxa uu sheegay in ay ka warhayaan dhaqdhaqaaqyada ay dawladda ka wado deegaano ka tirsan gobolka Gedo. wasiirka waxa uu ugu horreyn soo hadal qaaday qabsashada degmooyinka Beled Xaawo iyo Luuq, isla markaana uu sheegay in ciidamada dawladda ay la wareegeen ay muujinayso dagaal loo bisoonayo. sidoo kale Cabdi Xuseen wasiirka warfaafinta Jubbaland ayaa hadalkiisa isagoo sii wato waxa uu sheegay in Jubbaland aysan doonayn gacan ka hadal iyo in dagaal uu dhaco marka la eego gobolka Gedo iyo dhaqdhaqaaqyada dawladdu ay ka wado. hase ahaatee haddii laga fursan waayo uu sheegay in tallaabo ay qaadi doonaan. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ka soo hanjabay magaalada Mandheera. sida la sheegana waxa uu dawladda ku eedeeyay in ay wado daandaansi dagaal, balse wixii ay ka hesho ayuu sheegay in ay heli doonto. hay-adda Interpol ee dhanka booliiska caalamka ayaana laga codsaday in ay soo qabato oo ay gacanta dawladda federaalka ku soo celiso Cabdirashiid Janan oo falal dambiyeedyo kala duwan loo haysto, sida ay booliiska Soomaaliya qoraal ay soo saareen shalay Talaadadii ay ku sheegeen